السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka hadlaynaa sida page-ka ama warqadda cabirkeedii loo bedelo. MS Word markaad soo kacsato page-kiisa sida caadiga ah inta badan wuxuu ku aadisan yahay cabirka warqadda letter loo yaqaano. Marka haddii aad rabto inaad cabirada kale ee warqadaha kale ay leeyihiin inaad ku aadisato, marka hore waxaad tagaysaa halka ay ku qoran tahay layout, kadib waxaad ka tagaysaa halka ay ku qoran tahay size markaad klik ku siiso waxaa kuu soo baxaya cabiro diyaarsan iyo cabiro adiga aad samaysanayso. sida caadiga ah haddii kombiyuutarkaaga uu kugu jiro printer, inta badan cabirada diyaarsan ee labadani way ka badanayaan. marka haddii cabirka aad rabto, haddii aad ka weydo cabirada diyaarsan, haddii aad ka dhex weydo cabirka aad rabto inaad warqadaada ka dhigato, waxaad taabanaysaa halkan ay ku qoran tahay more, click aad leedahay, kadib waxaa kuu soo baxaya panelkan yar, kadib size-ka aad rabto inaad ka dhigato maadaama aad garanayso widthkiisa halkan ayaad ku qoraysaa, height-kiisana halkan ayaad ku qoraysaa, kadib waxaad leedahay okay. tusaale ahaan aniga kaliya hadda waxaan doonayaa inaan ka dhigto cabirada diyaarsan oo kaliya ayaan doonayaa inaan qaato, oo A4 iyo letter ayaa ii diyaarsan kaliya. marka cabiro intaa ka badan haddii aad rabto printerka aad isticmaalayso oo driverkiisa ayaad ku shubanaysaa cabirada uu printerkaasi daabacayo, dhammaan halkan ayay kaaga soo muuqanayaan cabiradooda oo diyaarsan. waxaad ku dhufanaysaa cabirka aad rabto hadduu diyaarsan yahay, kadibna page-kaaga cabirkiisa wuxuu noqonayaa cabirkaasi aad dooratay.